بريا dadka ku dhintay ceelafweyn inuu naxariista janno ka waraabiyo kuwa dhaawacay in la haybayo waxaan leeyahay dhibaatada hal jojo dadka ka faa'iideysanaya dhibaatooyinka waa dadwada dhexdii isku degaana muddo 4 sanadood socotay tanaasul badan hala sameeyo haddii ilaahay dhaho anigu Puntland waxaan ka soo guuray 29 bishii 7 mar kasta oo aan soo galo deegaanka anigoo nabad wada waxay la kulmayay dhibaatooyin aad u culus oo saliyano wuxuu ka dambeeyo horay inta markaan ka gudbo waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay goorsidii garxajisay iyo timi salaadiintii iyo boqoradii waxaanu heshiis ku galay in nabad la helo kow number 2 waxaanu heshiis ku galay in xabad joojin la sameeyo waxaanu heshiis ku galay in wada hadal la furo jabhadan Justice Equality Movement dulmidiid waxay u taagantahay jabhad hubaysan siyaasadeeda wadata eeldariskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof warta la soo qabanayo la hogaaminayo haddii ay laba baarti soo qaybsameen qaybina Hargeysa qabatay qaybina fadhido Ceergaabo oo ay suurto gelin waayeen arrintii aan ku ballanay qawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas'uul ka noqon doonta haddii Allah yiraahdo إن كير عبد الرحمن الله يرحمه سلطان كا هرو أفلقاتين يبغرده هرو أفلقاتين يبغرده تشالي ذا أفلقاتي أديات بنت بدا أن تشالي ذا وحال سنة يارنتا بدع الصبر تبلي إن أرمها سيماتان مدع اسمه إن بغر تبلي أفلقاتي وهاي صوب توقف كقرن باقي سلسلة تونا هدي الله يرحمه وحوك شغل شري وحو أهان شري تبغى لوجو نقوليا waxaan u qabaa inuu fashilmayo maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsigani halkan fadhiyo inuu xirsigani I don't know inuu wasiirkiifa yahay anigu ma garanayo anigu sultaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhada meel walba waa baraya dadka ku dhintay ceelafweyn inuu naxariista janno ka waraabiyo kuwa dhaawacay in la haybayo waxaan leeyahay dhibaatada hal jojo dadka ka faa'iideysanaya dhibaatooyinka waa dadwada dhexdii isku degaana muddo 4 sanadood socotay tanaasul badan hala sameeyo haddii ilaahay dhaho anigu Puntland waxaan ka soo guuray 29 bishii 7 mar kasta oo aan soo galo deegaanka anigoo nabad wada waxay la kulmayay dhibaatooyin aad u culus oo saliyano wuxuu ka dambeeyo horay inta markaan ka gudbo waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay goorsidii garxajisay iyo timi salaadiintii iyo boqoradii waxaanu heshiis ku galay in nabad la helo kow number 2 waxaanu heshiis ku galay in xabad joojin la sameeyo waxaanu heshiis ku galay in wada hadal la furo jabhadan Justice Equality Movement dulmidiid waxay u taagantahay jabhad hubaysan siyaasadeeda wadata eeldariskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof warta la soo qabanayo la hogaaminayo haddii ay laba baarti soo qaybsameen qaybina Hargeysa qabatay qaybina fadhido Ceergaabo oo ay suurto gelin waayeen arrintii aan ku ballanay qawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas'uul ka noqon doonta haddii Allah yiraahdo إن كير عبد الرحمن الله يرحمه سلطان كا
hore u aflagaadaynayay boqorrada hore u aflagaadaynaya boqorrada jaaliyadaha aflagaadeeyey aad iyo aad baan jaaliyadaha uga xaalsinaya arrintaa ma dhacayso mar dambe in arrimahaas yimaadaan ma dhacayso in boqor dambe la aflagaadeeyo waayo sababtoo qofka garoon baagiisa la sheegi doonaa haddii alla yidhaah wuxuu ka shaqayn jiray muxuu ahaan jiray dib baa loogu noqonayaa waxaan u qabaa inuu fashilmayo maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsiqani halkan fadhiyo inuu xirsiqani I don't know inuu wasiir jifa yahay anigu ma garanayo anigu suldaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga ah wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhadda meel walba waa barayaa dadka ku dhintay ceelafweyn inuu naxariistii janno ka waraabiyo kuwa dhaawacana in ilaahay u bargadhayo waxaan leeyahay dhibaatada hala joojo dadka ka faa'iidaysanaya dhibaatooyinka waa dad wada dhexdaya isku degaana muddo 4 sannadoodii socotay tanaasul badan ha la sameeyo haddii ilaahay dhaho anigu Puntland waxaan ka soo guuray 29 bishii 7 mar kasta oo aan soo galo deegaanka anigoo nabad wada waxaa ila kulmayay dhibaatooyin aad u culus oo saliya nuuxuu ka dambeeyo hore intaa markaan ka gudbo waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay goorsidii garxajisay iyo timi salaadiintii iyo boqorradii waxaannu heshiis ku gallay in nabad la helo kow number 2 waxaannu heshiis ku gallay in xabad joojin la sameeyo waxaannu heshiis ku gallay in wada hadal la furo jabhaddan Justice Equality Movement dulmidiid waxay u taagan tahay jabhad hubaysan siyaasaddeeda wadata eeldariskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof qoorta la soo qabanayo la hoggaaminayo haddii ay laba baarti soo qaybsameen qaybina hargeysa qabatay qaybina fadhido ceergaabo oo ay suurto gelin waayeen arrintii aan ku ballannay qawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas-uul ka noqon doonta haddii alla yidhaaho inanka yar cabdiraxmaan la yidhaaho ee suldaanka ah ee hore u aflagaadaynayay boqorrada hore u aflagaadaynaya boqorrada jaaliyadaha aflagaadeeyey aad iyo aad baan jaaliyadaha uga xaalsinaya arrintaa ma dhacayso mar dambe in arrimahaas yimaadaan ma dhacayso in boqor dambe la aflagaadeeyo waayo sababtoo qofka garoon baagiisa la sheegi doonaa haddii alla yidhaaho wuxuu ka shaqayn jiray muxuu ahaan jiray dib baa loogu noqonayaa waxaan u qabaa inuu fashilmayo maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsiqani halkan fadhiyo inuu xirsiqani I don't know inuu wasiir jifa yahay anigu ma garanayo anigu suldaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga ah wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhadda meel walba waa barayaa dadka ku dhintay ceelafweyn inuu naxariistii janno ka waraabiyo kuwa dhaawacana in ilaahay u bargadhayo waxaan leeyahay dhibaatada hala joojo dadka ka faa'iidaysanaya dhibaatooyinka waa dad wada dhexdaya isku degaana muddo 4 sannadoodii socotay tanaasul badan ha la sameeyo haddii ilaahay dhaho anigu Puntland waxaan ka soo guuray 29 bishii 7 mar kasta oo aan soo galo deegaanka anigoo nabad wada waxaa ila kulmayay dhibaatooyin aad u culus oo saliya nuuxuu ka dambeeyo hore intaa markaan ka gudbo waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay goorsidii garxajisay iyo timi salaadiintii iyo boqorradii waxaannu heshiis ku gallay
in nabad la helo kow number 2 waxaanu heshiis ku galay in xabad joojin la sameeyo waxaanu heshiis ku galay in wada hadal la furo jabhadan Justice Equality Movement dulmidiid waxay u taagan tahay jabhad hubaysan siyaasadeeda wadata eldariiskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof warta la soo qabanayo la hogaaminayo haddii ay laba baarti soo qaybsameen qaybina Hargeysa qabatay qaybina fadhido Ceergaabo oo ay suurto gelin waayeen arrintii aan ku ballanay qawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas'uul ka noqon doonta haddii alla yiraahdo inanka yar Cabdiraxmaan la yiraahdo ee suldaanka ee hore u aflagaadeynayay boqorrada ee jaaliyada aflagaadeeyay aad iyo aad baan jaaliyada uga xaalsinaya arrintaa ma dhacayso mar dambe in arrimahaas yimaadaan ma dhacayso in boqor dambe la aflagaadeeyo waayo sababtoo qofka garoon baagiisa la sheegi doona haddii alla yidhaahdo wuxuu ka shaqayn jiray wuxuu ahaan jiray dib baa loogu noqonayaa waxaan u qabaa inuu fashilmayo maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsigani halkan fadhiyo inuu xirsigani I don't know inuu wasiir jiifa yahay anigu ma garanayo anigu suldaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga ah wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhadda meel walba waa baraya dadka ku dhintay ceelafweyn inuu naxariistii janno ka waraabiyo kuwa dhaawacayna in ilaahay bargadhayo waxaan leeyahay dhibaatada hala joojo dadka ka faa'iideysanaya dhibaatooyinka waa dad wada dhexdaya isku degaana muddo 4 sannadood socotay tanaasul badan hala sameeyo haddii ilaahay dhaho anigu Puntland waxaan ka soo guuray 29 bishii 7 mar kasta oo aan soo galo deegaanka anigoo nabad wada waxay la kulmayay dhibaatooyin aad u culus oo saliyo wuxuu ka dambeeyo orag inta markaan ka gudbo waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay goorsidii garxajisay iyo tibi salaadiintii iyo boqorradii waxaanu heshiis ku galay in nabad la helo kow number 2 waxaanu heshiis ku galay in xabad joojin la sameeyo waxaanu heshiis ku galay in wada hadal la furo jabhadan Justice Equality Movement dulmidiid waxay u taagan tahay jabhad hubaysan siyaasadeeda wadata eldariiskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof warta la soo qabanayo la hogaaminayo haddii ay laba baarti soo qaybsameen qaybina Hargeysa qabatay qaybina fadhido Ceergaabo oo ay suurto gelin waayeen arrintii aan ku ballanay qawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas'uul ka noqon doonta haddii alla yiraahdo inanka yar Cabdiraxmaan la yiraahdo ee suldaanka ee hore u aflagaadeynayay boqorrada ee jaaliyada aflagaadeeyay aad iyo aad baan jaaliyada uga xaalsinaya arrintaa ma dhacayso mar dambe in arrimahaas yimaadaan ma dhacayso in boqor dambe la aflagaadeeyo waayo sababtoo qofka garoon baagiisa la sheegi doona haddii alla yiraahdo wuxuu ka shaqayn jiray wuxuu ahaan jiray dib baa loogu noqonayaa waxaan u qabaa inuu fashilmayo maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsigani halkan fadhiyo inuu xirsigani I don't know inuu wasiir jiifa yahay anigu ma garanayo anigu suldaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga ah wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhadda meel walba waa baraya dadka ku dhintay ceelafweyn inuu naxariistii janno ka waraabiyo kuwa dhaawacayna in ilaahay bargadhayo waxaan leeyahay dhibaatada hala joojo dadka ka faa'iideysanaya dhibaatooyinka waa dad wada dhexdaya isku degaana
مضافر سنة سعودي تناسل بدل هلا السمية تناسل بدل هلا السمية عدي لا أنا قبضنا وحن كسو كوري يا شغالي يلا باتنكي بشي تدبات مركز سو عن سوق قالوا دقان كانوا نبات وذا وحيلا كل بيدي باتوين هذا علوس وصلي نوح وقدم بيا أراج أنت مركم قبضلو وحن شو قادول كيجي وحن شو قادول كي عن كل شيء وحن لا شو قايل كي كورسي دي قرحتي سيجتمي صلاتين تي بقردي وحن هشيس كوك الله إنه بدل حركو نمبر 2 وحن هشيس كوك الله إن حبة توجين الصنايع وحن هشيس كوك الله إن وذا هذا اللفره جبهة justice equality movement دول مديد waxay taagtaa jabahad hubaysan siyaasadeeda wadata eeldariskeeda leh golaheedii dhexe leh maaha qof warta la soo qabanayo la hogaaminayo haddii ay laba baarti soo qaybsameen qaybina hargeysa qabatay qaybina fadhido ceergaabo oo ay suurto gelin waayeen arrintii aan ku ballanay qawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas'uul ka noqon doonta haddii alla yidhaaho إن كير عبد الرحمن الله يرحمه سلطان كا هرو أفلاقاتين يبغرده هرو أفلاقاتين يبغرده تشالي هذا أفلاقاتي أدي أدبان تبدا أن تشالي هذا وحال سنة يارنتا بدأ عصبر تبلي إن أرمها سيماتان بدأ عصبر إن بغر تبلي أفلاقاتي وهاي صوب توقف كقرن باقي سالشيك تونا هدي الله يرحمه وحوك شغل شري وحو أهان شري تبى لوج نقولنا waxaan u qabaa inuu fashilmayo maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsigani halkan fadhiyo inuu xirsigani I don't know inuu wasiir jifa yahay anigu ma garanayo anigu suldaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga ah wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhadda meel walba